مانتا مدحين بناني مانتا ومالي وين مانتا مدحين بناني مانتا. waa mashruuci ugu weynaa oo abid laga hirgeliyay Soomaaliya balse aan la guranin mirihiisa. maxaad ka taqaanaa mashruucii biyo xireenkii Faanole? maxayse ahaayeen sababihii ragaadiyey? halkee ayuuna ku dambeeyey? muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa macluumaad badan oo aadan ka ogeyn mashruucii biyo xireenkii Faanole. Salaamu calaykum saaxiibayaal, ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. mashruuca biyo xireenka Faanole ee Soomaaliya waxa uu ahaa mid ka mid ah mashaariicda laga fuliyay Soomaaliya kadib xornimadii 1960kii. fikirka mashruucan biyo xireenka ah waxaa lahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaake. dowladdii Soomaaliya ayaa midowga Sofiyeetka kula heshiisay inuu biyo xireen weyn uga dhiso deegaanka Faanole ee Jilib sanadka markuu ahaa 1974. Faanole waxa ay ku taallaa goob qiyaastii 22 kiiloomitir waqooyiga kaga beegan magaalada Jilib. markii ay Soomaaliya qaadatay nidaamka anti-wadaagga shuuciyadda sanadkii 1970kii, kalsoonidii midowga Sofiyeeti waa uu kobcay. waxa ayna ku dhawaaqeen inay Soomaaliya u dhisayaan biyo xireen weyn oo koronto badan dhalin kara, biyo badanna kaydin kara, iyo sidoo kale waraabin kara dhul beereed aad u ballaaran. waxaa waqti badan qaadatay maalgelin dhaqaale, khubaro aqoon sare oo leh biyo xireennada, iyo caqabado kale oo saameeyey fulitaanka mashruucan, sida Soomaaliya oo gashay marxalado siyaasadeed iyadoo ay dalka la wareegeen militariga sanadkii 1969kii, iyo dagaalkii ba'naa ee ay Soomaaliya la gashay Itoobiya sanadkii 1977. dhammaan arrimahaas oo isbiirsaday ayaa ka dhigay in mashruucan uu daba dheeraado oo uu qaato waqti badan ilaa ay kaga baxday oraahda caanka noqotay ee Faanole fari kama qodna. dowladdii kacaanka ee uu hogaaminayay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre ee dalka la wareegtay sanadkii 1969kii ayaa qaadatay nidaamka shuuciyadda ee ku salaysan hanti wadaagga, iyadoo xiriir wanaagsan la yeelatay dowladdii midowga Sofiyeetka. waxaa sii socday fikirka mashruuca biyo xireenka Faanole oo sanadkii 1974 toos u bilowday. dhismaha iyo habsami u socodka mashruucan biyo xireenka Faanole waxaa saameyn ku yeeshay dagaalkii ay Soomaaliya la gashay Itoobiya sanadkii 1977. waxaa xumaaday xiriirka dowladdii Soomaaliya iyo midowga Sofiyeetka, iyadoo dalka laga saaray midowga Sofiyeetka oo ugu dambeyn Itoobiya soo garab istaagay. taasina waxay keentay inuu halkaasi ku istaago dhismihii biyo xireenka Faanole. Soomaaliya ayaa heshiis kula gashay dowladdii Shiinaha in ay la wareegto mashruuca biyo xireenka Faanole oo ay dhammaystirto mashruucan sanadkii 1978. ujeedka biyo xireenka Faanole. ujeedooyinkii laga lahaa biyo xireenka Faanole waxaa ka mid ah: 1. koronto dhalinta. 2. waraabinta beeraha. mashruuca biyo xireenka Faanole waxaa barbar socday mashruuc kale oo ahaa beerista bariis dhul gaaraya ilaa 40,000 oo hektar. Soomaaliya ayaa xilligaas ku fikiraysay inay sare u qaado wax soo saarkeeda bariiska oo markaasi ku koobnaa magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe. gobollada Jubbooyinka sida Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe ayaa xilligaasi la rabay in lagu beero bariis, oo mashruucan wuxuu barbar socday mashruuca biyo xireenka Faanole. dowladdii Shiinaha ayaa biyo xireenka Faanole dhammaystirtay sanadkii 1982. biyo xireenka Faanole ayaa shaqo bilaabay isla sanadkaas, isagoo waraabin jiray beero bariis, sisin iyo caleenta shaaha. biyo xireenka Faanole waxa uu sidoo kale koronto siin jiray magaalada Mareerey iyo magaalada Jilib. waxa kale oo uu koronto siin jiray warshadda sonkorta Jubba oo ku taalay Mareerey ee gobolka Jubbada Dhexe. korontada biyo xireenka uu dhalin jiray waxa ay gaaraysay ilaa 4.6 megawatt maalintii. biyo xireenka Faanole waxa uu ka koobnaa 3 kanaal oo 2 ka mid ah ay marayeen bariga webiga Jubba. dhererkoodu waxa uu ahaa 52 kiiloomitir iyo 30 kiiloomitir, halka kanaalka saddexaad uu marayay dhinaca galbeedka webiga. dhererkiisana waxa uu ahaa 25 kiiloomitir oo loogu talagalay beeraha qasabka ee Mareerey. mashruucii kale ee beerista bariiska ee xiriir socday biyo xireenka Faanole ayaa isagana waxaa la beeray dhul gaaraya ilaa 5,000 oo hektar oo bariis ah.
laakiin lama gaarin hadafkii guud ee ahaa 40,000 oo hektar. bariiska ka soo baxa beerahaasi waxa ay dowladdu siin jirtay askarta. qandaraas ku siino siyaasad dowladeed aheeday xoogga dalka Soomaaliyeed. sababtu waxa waaye bariid baa banaanka laga keeni jiray lacag badan oo had karinsa ku bixaysay wixii aan soo saarnay iskuulisiimanta iga la siinay. marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray mashruuca biyo xireenka Faanole sanadkii 1963 waxaa la hindisay fikirka mashruucan. sanadihii 1963 ilaa 1973 waxaa mashruuca loo raadinayay maalgelin lagu dhaqaajiyo iyo farsamo yaqaano. sidoo kale waxaa saameyn ku yeeshay mashruucan isbeddelka siyaasadeed ee dalka ka dhacay. 1974 waxaa bilowday dhismaha biyo xireenka. 1977 waxaa istaagay mashruucii maadaama dalka laga saaray midowgii Sofiyeedka kadib dagaalkii Soomaaliya iyo Ethiopia. 1978 waxaa mashruuca biyo xireenka Faanole la wareegay dowladdii Shiinaha. 1982 waxaa la dhameeyay dhismaha biyo xireenka Faanole. biyo xireenka Faanole ayaa shaqaynayay intii u dhaxaysay sanadihii 1982 ilaa 1991 waxa uuna ka mid noqday hantidii qaranka Soomaaliyeed ee ku burburtay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka, waxaana ay qayb ka noqotay in deymo badan lagu yeesho dalka. haddaba daawade ma kula tahay in mashruucan dib loo yegleeli karo si ay uga faa'iidaystaan malaayiin Soomaali ah? fadlan ku soo qor fikirkaada qaybta kommentiga isla markaana share garee videoga.